السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barnaamijkan aan halkan ku sharixi doonaa waa barnaamij la xiriira kaniisad sira oo qarsoon oo ka jirta dhulka Soomaalida. Barnaamijkani kow uu ka baxsan yahay xifaaltankeena iyo ishaynteena siyaasadeed. Deegaan ku riixayay uu ka baxsan yahay. Kow maaha mid barnaamijkan siyaasad ku shaqale, waa barnaamij diinteena taabanaya, aqoonsigeena Soomaalinimo taabanaya, shariicadeena Islaamka iyo diinteena Islaamka inuu ka tirsanayna taabanaya. Ka dhex saaray xifaalihii iyo xifaaltankii siyaasadeed. oo qodobka labaad waxay isweydiin mudan saxaafadda Soomaalidu xataa diinta gaarka maaha. حتى arrimaha noocan ah diinta islaamka ka soo baxay xogaha laga bixinayo saxaafadda Soomaalidu sidii tay ugu baraarugsan oo mid lama wadaagayso meelaha saxaafadda Soomaalida dhaliisha weyn uga hayaabay kamid tahay intaas baraarujinayga hata ka kaal website-ka prosecution.org ay leedahay hay'adda International Christian Concern ICC hay'adda la yiraahdo ee kaniisadaha iyo Kristanka international caalamka u shaqeysa ayaa 16 August 2025 ka qortay warbixin ay kaga waramayso Soomaaliya iyo sidii dadka ugu kiristaamayso iyo ilaahay kuma sabata daraaday kaniisada underground oo soo dahsoonay ka jiraan iyo sida missionkaas uu socdo marka mowduucan uu ka baxsan yahay siyaasadii arrimaha isku waa mowduuc midnimada iyo jiritaanka uu la xiriiro ka dhex saara kaftankii arrimahaas una qeyrooda diintii waxa uu xusayaa oo ay kaniisadaasi xusaysaa mid ka mid ah dalalka loogu nacab yahay Kristanka oo ah Soomaaliya in ay ICC oo ah qoladaas Kristanka u adeegta ee caalamiga hay'adda Kristanka u adeegta caalamiga ay si qarsoodiyo ugu la kulanto Soomaali Kristan ah oo isqariyo oo dhunta Soomaali Kristan oo diinta ka baxay oo isqariyo dhunta inay kula kulmaan waxay xusayaan oo website-kooda ay ku soo gudbiyeen dalka Soomaaliya oo in aad Kristan noqoto ay ku sababi karto in lagu barakiciyo xabsi in lagu dhigo ama bedel ayay ICC oo hay'addaasi ka shaqeysaa sidii ay u kaalmayn lahayd Kristanka isqariya ee Soomaalida siday u magan gelin lahaayeen qoysaska la caburiyo ee diintaas Kristanka qaata iyo sida ay u xoojin lahaayeen faafinta Kristankaas ee sida dahsoon u socota missionary iyo faafinta diintaas ee sida dahsoon u socota isagoo xusaya sida Soomaalidaas Kristamowda ee diintooda u qarsanayaan ayaa wuxuu leeyahay Kristanka Soomaaliya mar walba baqdin ayay wadnaha farta kula hayaan 2024 mar aan booqanay Soomaaliya ayay leeyihiin caasimadda Muqdisho waxaanu kula kulanay Kristan si gabi ahaan u qarsoon oo cibaadadooda wata oo dhunta waanu halka kula soo kulanay waanu kula soo xaajaysanay wuxuu ku leeyahay hadalka u fiirso waxaanu la kulanay kaniisad qarsoon oo underground ah kaniisad underground oo qarsoon oo noo xaqiijisay inay si hubaal ah u hayso oo si hubaal ah ay uga diiwaan gashan yihiin oo ay xaqiijiyeen inay u diiwaan gashan yihiin 1500 oo xubnood oo Kristan ah badigooduna hadaan digdigood baahan in Kristan kale Soomaali kuma dhex jiraan ay yihiin dad Islaamka ka soo diga rugtay oo Kristaamoobe ay yihiin waa kaniisad qarsoon underground Muqdisho ku taala 1500 oo qof oo Soomaaliya oo Kristaamoobe ay joogaan oo halka hay'addaasi ay ku biiriso oo ay kula xiriir wanaagsan kula leedahay meel socota iyaga qoraya ma xogaan inuu baadhno daba galay iyaga soo qoraya waxa uu leeyahay website-kaasi iyo warbixinta iyagu iska soo saareen Islaamka ay ka soo baxayaan qodob lama taabtaan ayuu u yahay Islaamkaas ay dadkaas ka soo baxayaan markii Kristaamoobayaan qodob lama taabtaan buu yahay qolada dagaalamaysa ee shabaabka iyo dawladda taasoo ku kalifaysa waa hadii la ogaado dadkaas Kristaamoobe diinta ka baxay in ay ka cararaan guryahooda eheladooda iyo aqoonsigooda Soomaalinimada inay baxsadaan ku kalifaysa ururkaas kaniisadaha Kristanka ee ICC si uu ammaan u dareensiyo dadkaas Kristaamoobe wuxuu u sameeyay guryo sir ah oo ay diintooda kula dhuntaan oo ku yaala caasimadda dhexdeeda waxaana mas'uul ka ah baadiriyo Soomaali ah oo dahsoon oo lagu kalsoon yahay waa baadiriyo Soomaali ah oo qarsoon oo la garanayn lagu kalsoon yahay looga dambeeyo hawsha Kristaamiinta si ku habboon oo qalanteynay wadaan laftooduna weeraro iyo hanjabaado kala duwan ka badbaaday meel socota hawshu waa dheerta waxa sidoo kale uu xusay website-kaasi in laga bixiyo kirada guryahaas ay dadkaas ku nool yihiin in kirada laga bixiyo si aanay caqabad dhaqaale u qabsan dadka soo Kristaamoobayana ay u helaan meel ay ku soo kabtaan oo ay kaga soo kabtaan traumada Islaamka kaga soo dhacday dabcan oo ay ku dhuntaan iimaankoodan cusub ee Kristankana ay ku kubciyaan waddankana dhexdiisa waxaas ka dhacaya waxa uu xusayaa sidoo kale guryahaas midkood waxaa ku nool dad ka badan 20 qof oo ka soo baxsaday guryahoodii iyo faamiliyadoodii maadaama la ogaaday inay Kristaamoobeen rabbi yasir
waxa uu xusayaa sidoo kale iyadoo ay maalgelinayso hay-addaas ICC ee kiristanka iyo kiniisadahooda ee caalamiga ah ayay hogaamiyeyaal Soomaaliya hadalka u fiirso Somali leaders hogaamiyeyaal Soomaali ah oo lagu kalsoon yahay u suuro geliyaan in ay dadkaas kiristaamobay guryaha ku dhuntay qaab mid ka mid ah 20 qof inta ka badan ku jiraan ay si qarsoodiyo u helaan quudkooda iyadoo oo sirnimada hawlgalkoodana si heer sare ah looga ilaalinayo awoodaha cadawga ku ah kiristaamowgaas dabcan waa ummadii Soomaaliyeed oo dhan iyo muslimiinta oo dhan su'aashu waxa weeyaan ereyga Somali leaders markay halka ku qoreen haddii uga jeedaan baadiriyadii lagu kalsoonaayo aynu hore u soo sheegnay way muujin lahayn waa calaamadin lahayn baadiriyadaas lagu kalsoon yihiin inay hawshan qabtaan laakiin halkan waxa ku xusan hogaamiyeyaal Soomaali ah hogaamiyaashaasina ma hubo laakiin waxay u badan tahay inay tahay rag dawladda ku dhex jiro oo saameyn iyo awood dawladda ku dhexle inay hawshan wadaan way hawlahan fududaynayaan haddii doonaan iyagu islaamkooda ba haysanayaan inay hawsha haysanin Somali leader baa meesha ku qoran shirqool weeyaan heer sara oo heer aynan gaadhin inagu ka kaalay dib ay ka cadaan doonta waxa uu xusayaa sidoo kale ma Muqdisho qudhaba maya gobolka waqooyiga buu leeyahay waa Somaliland dabcan Somaliland bay waqooyi u sheegayaan waxa joogta baadiriyad gabadh ah oo ICC ay taageerayso oo halkaas hawlgal diin faafina kaligeed ka wada waa kaligeed oo baadiriyad ah oo ICC ay taageerayso oo hawlgal diin faafina halka ka wada waana gabadh neerasa oo dhakhtarada ka shaqeysa waliba sida warbixinta ka muuqata dhakhtarada hooyada iyo dhallaanka oo waxa uu xusayaa sidoo kale inta ay ka shaqeynayso dhakhtarada deegaankaas ayay xirfadaheeda dhakhtarnimo ka dhigataa biriish ay ugu tallaabiso diinta kiristankiisidu hooyada iyo dhallaanka way sida diinta kiristanka ku marsiiso gabadhaas jiritaankeedu waxa uu horseeday bay leeyihiin iyagoo ku faanaya in ay dad kiristaamayso shabakad dahsoon oo isku xidhanna ay ka samayso deegaano aanu hore kiristanku u gaari jirin waa Somaliland bay taasina ka dhacda iyadoo caqabad luuqadeed ay jirta bay leeyihiin dhaqaale xumana ay hayso haddana handadaad joogta ahna mar walba ay la kulmaysa gabadhaasi oo de anytime xogteeda la ogaado halkeeda lagu cuni karo ayay haddana hawlgalkeedaas muddo 2 sano ka badan ay waday aaway sirdoonadii mise hawshan way la haystaan aaway dadkii firfircoonaayo Soomaalida ay xogaan sidii yar sahran ku ogaan jiray hawshaas waddankeena ka dhex socota Somaliland iyo Soomaaliya hay'adaas kiniisadaha ICC ayaa ugu deeqda dhaqaale aan buurayn oo bilo ah si ay gabadhaasi ugu kafayso kirada cuntada iyo socdaallada ay siga kala socdaalaysa deegaanada ay diinta kiristanka gaarsiinayso gabadha sheekadeeda waa la qarinayaa ayay leeyihiin si loo ilaaliyo aqoonsigeeda iyo ka dadka ay caawisaba waxay sidoo kale xusayaan gurmadka degdega ee ay u fidiyaan dadka kashifma marka la ogaado waxay leeyihiin 2023 nin kiristaamobay ayaa weer hubeysan lagu qaaday shabaab ayaana gubtay beertiisii markii ay ogaadeen inuu kiristaamobay muddo usbuuciya oo baxsad ku jiray kadib isaga iyo ehelkiisu ugu dambeyn hay'adaas kiniisadaha ee caalamiga ee ICC ayay soo gaadheen oo ugu deeqday $4,000 si ay isagaga dibiraan cuntada kirada iyo dharka iyo baahiyaha ay u baahan yihiin meel amniya oo ay degaanna ay ugu guuraan maanta ninkaasi kiniisadaas qarsoon ee underground-ka ah ayuu hawsheeda ka wadaa gurigiisa sirta ah ee uu amniga ku yahay yacni xubin kasta oo xataa hadday ka shifanto waa la diyaarinaya meel kale ka hawlgalaysa hawshu way socotaa maalgelintiyo dhaqaaluna waa ku socdaa way intaasun ma aha ICC waxay fangaraysaa oo taageertaa xitaa Soomaalida dibadda u baxday waddankaba ka baxday ee kiristaamooba oo Mombasa dhawaan waxay fiigi iskuulka ka dabareen arday Soomaaliya oo kristan ah oo la cunsuriyadeeyo xaalada dhaqaalena la nool mid ka mid ah waalidiintii carruurtaas oo markii laga fujiyay hadlayaana waxa uu yiri waa naadir inaan aragno cid nala fahanta dhibaatada haysata ka kristan isqarinaya oo Soomaaliya ahaan laakiin idinka garab istaag noo muujiyay maanta halaas isla mariyay waddanka dibadiisa waxay leeyihiin qorshe kasta oo ICC Soomaaliya ka fulisaa waa sir dhammaystiran confidential oo aan la faafin karin haddii magacyada iyo goobaha dadkaas la sheegana dhibaataa soo gaari karto lama sheegayo ilaa hadda arrinku si yaro xusuus soconaya waxay sidoo kale leeyihiin haddana iyadoo waxaa soo taageero ah la garab taagan yahay waxay ICC awood u siinaysaa iyadoo waxaa soo taageero la garab taagan yahay waxaa soo hantidaad in ay ku xiriiraysan yihiin haddana waxay ICC awood u siinaysaa kristanka Soomaalida ah ee kristaamaweynta islaamka ka baxaan inay gaadhaan marxalad ay isqarinta ka baxaanoo codkooda ay muujiyaanoo caadi ay kristiyaanatiga ugu faafiyaan Soomaalida dhexdeeda gabagabadii markaa waxay ku soo gabagabeynayaan qormadoodaas kiniisadaas ay ku soo gabagabeynaysaa deegaan aan kiniisado laga dhisi karin kiristankuna aanay iimaankooda muujisan karin ayuu halkaas nabi ciise hawshiisa ka wata nabi ciise iguma odhanayaan waa ilaah ciise xaggoode
oo si daahsoon kaniisadiisa uu uga dhisaya su-aashu waxa weeyaan aaway sirdoonadii soomaalida aaway saxaafadii aaway dadkii isha dheeraa aaway culimaaudiinkii arrimaha diinta inoogu xeesha dheeraa arrimahan waa in daymo dhow loo lahaada hadda tan kiristankaa soo qoraya sidaas si lamida khaniisiintu loobiyo iyo umeero sidan oo kale ay ku kulmaan bay ku leeyihiin waddankeenna hadda tan ka hadlmaayo koonfur iyo somalilan iyo soomaaliya waxaas ma jiraan imika hadda tan waa mid isirkeena iyo diinteena la xidhiidha xifaalihi uu dhammaaday hadda waa ku leeyihiin oo calmaaniyiintaa kule oo milxidiintaa kule oo feminismkaa kule oo dhammaan ideolojiyadaha diintana lidiga ku aba kule mayla socotaa il dheer baa loo baahan yahay baraarug baa loo baahan yahay kuna darsada oo waxaa dib ka caddaan doonto la ogaan doono dadkaasi baraha bulshada kama maqna limaada laana meesha bulshada laga saameeya waa barsan baraha bulshada kama maqna qaar badan oo idin caana maantu laga yaaba inaad bari ogaataan inay kristan ahayn ama ay wax kala wadeenba qaar badan oo maanta idin caana waa laga yaabaa hawshu way socotaa inaguna waa hurudnaa waa isjeedadkeenu maynu ka shaqaynaynaa waddankiina halkaas la isla maraya 1500 ayaa kaniisad qarsoona underground ah muqdisho jooga oo halkaa madax soomaaliya sida qormada ka muuqata Somali leaders ay halkaa quudkoodii wuxuu ugu geeyaan oo ICC ay u sii marisa halkan Somalilandna hal gabadha baa wadaba hawsh meeshan kaba wado neerasa meel socota hawshu way socotaa il dheer hala lahaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.